saacadu waa abaara 10kii subaxnimo. halkani waa kawaanka kalluunka ee magaalada Muqdisho gaar ahaan Xamar Weyne. booqashadeena ayaa ku aadan saameynta ay isku leeyihiin badda iyo roobka. intii aan ku guda jirnay gudaha kawaanka waxa indhahaygu qabanayeen kalluun la'aan baahsan oo ka jirta gudaha kawaanka. shacabka ayaa dareemaya inuu kor u kacay qiimaha kalluunka. haddaba ujeedadeena ayaa roobkii dhawaan ka daayay magaalada Muqdisho saameyn intee leeg ayuu ku keenay kalluumaysatada. ganacsato kala duwan oo aan ku wareysanay gudaha kawaanka kalluunka ayaa nooga warbixiyay xaaladda guud ee kalluunka. oo ku magac dheer Fandam oo ka shaqeeya degmada Xamar Weyne gaar ahaan kawaanka malayga abay kalluunka sida ujeedada ka daacad ah waxa lagu jiraa xila xagaaya oo 6 bil oo xagaaya lagu jiraa malay la'aan aad iyo aad u weyn jirto. kalluunka inta badan wuxuu ka imaadaa Warshiiq iyo Meeraali iyo Cadale maadaama bilo hore aan soo dhaafnay oo kalluunka aad iyo aad u fara badnaay hadeertaan kalluunka inta badan safaro nooga imaadaa oo badiya xun doomo yaro qiyaas ah baxan iyo bolbo malayga waa kal nooc ilaahay magu darnaado. yumbiga waxa la gadaa kiiladii $4 soo fiila ah iyo xaaska waxa la gadaa $3 tartabada iyo waxaas iyo $5 xabadii فيشل ده روتر شوي معناها marka waxa way madaxiisa waa kare macnaha malaay yar way waan madaxiisa markii la gadanayo waa iska $2 badda ayaa kacda xilliyada ay daayaan roobabka waxaana halka ka dhasha inay gali waayaan kalluumaysatada maadaama ay halis ku tahay naftooda.